60 sano oo laga jooga kicitaankii guumaystaha iyo 60 sano oo ka sii horeeyay sidoo xaalku ahaa rajadii burburtay ee lagu doonayay midnimada shanta Soomaaliyeed ee 1948 Muqdisho la isugu keenay taas oo xisbigii SYL ee Soomaaliya diiday midnimada halka afartii kale ay aqbaleen wareejintii dhulkii Soomaalida lagu wareejiyay Itoobiya 1954 gobonnimadii 1960 la helay midnimadii labada Soomaaliyeed sadbursigii koonfurta ee dawladihii rayidka ahaa dilkii madaxweyne Sharmaake iyo qisooyinkii kulamaana ee ay ka mid tahay in tiraba 2 jeer loo sii sheegay in la sacaanood lagu dilayo afkambigii Siyaad Bare iyo dhaxal wareejintii midnimada Soomaalida bedelaadii magacii lagu heshiiyay ee Somali Republic oo loo bedelay Soomaaliya dagaalkii isirka ku salaysnaa ee dawladda Soomaaliya kula kacday beelaha Somaliland Siyaad Bare oo ay ka go'nay baabiinta iyo dabargooyinta reer Somaliland wuxuu hub uu gumaad ku geystay ka soo qaatay saaxiibadiisii adduunka ugu dambeyntiina si aanay dawladda Mareykan iyo ururada xuquuqul insaanku uga hadlin xasuuqii uu shacabka ku hayay wuxuu la heshiiyay koox diinta Kiristaanka faafisa wuxuuna ku biiray diinta Kiristaanka isagoo geestiisana ka dalbanaya inay Mareykanka indhaha ka qabtaan dadka rayidka ee waqooyiga ku leynayo halgankii hubaysnaa ee SNM 29 sano oo Somaliland dawladnimo kaga hana qaaday iyo 29 sano oo Soomaaliya dadaal loogu jiro dhismaheeda dhaxalkii midnimada كداو هوريال تي في habeenimada jibcuhu ay soo galaysa ee maanta oo kalena ay tahay khamiis saacada bariga Afrika markay tahay 10 iyo 15 daqiiqo oo habeenimo waa labada bisha July ee sanadkan 2020